waxaa maanta noo suurto gashay in aan dhaawacii u dirno caafimaadda dibadda shacbigii ku dhaawacmay iyo mas'uuliyiintii ku dhaawacmay intaba waxaa noo suurto gashay maanta inaynu u dirno dalka dibaddiisa si loogu soo daaweeyo taasoo ah tan xukuumadda mar kasta ay u taagan tahay in shacbigeeda iyo mas'uuliyiinteeda garab istaagto taasna waxay ku suurto gashay wada shaqaynta iyo kaalmada iyo walaaltinimada dhow ee shacabka iyo dawladda qatar aynu saaxiibadan nahay ayay ku suurto gashay oo markaa gurmad u soo diray takhaatiir iyo diyaarad maartay ambulance ah u soo dirtay si nagiin aan lagu qaaday dhammaan intii dhaawacantay waxaan leeyahay ilaahay noo caafiyo shuhaadadiina ilaahay jannadii ha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inta dhintay allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo sidaa og tihiin shalay waxaa ka dhacay gobolka banaadir aqalka dawladda hoose looga arrimayo fal argagax leh oo ay soo maleegeen cadowga ugu talagalay inay dadkeenna ay gumaadaan habeenii maalin laakiin sib wanaag ilaahay amarkiis sidii ay wax u rabeen waxba uma dhicin tiro yar oo dhaawaca uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka banaadir dhaawaca fududa ayaa jirta waxaan rajaynaynaa maalmo kadib asigoo oo socda inuu noo yimaado insha allah biidnillaahi kariim dadka reer muqdisho waxaa ugu baaqayaan inay isdejiyaan waxaa kaloo ugu mahad celinayaa sidii ay noo garab istaageen ayaan ugu mahad celinayaa waxaan rabaa in arrimaha iyo qaabka u dhacay qaraxa waxaa ku howlan laamaha ammaanka waxay warbixinana ayagaan ka sugaynaa haddaba haddii aad ku cusub tahay janalka Baris Media fadlan subscribe saar gambaleelkana taabo si aad ula socotid warbixinnada wararka mahadsanid